السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان مرتي شرفت كسر قيب الشيء قف وربا درجة مذيع هي يحرك ويسوع أيام سلامية وكسر دويني مركوا الرئيسة وحنا بريو درينا ضمان قرن كوردن جودهان عيد ماذا قرن كسيدوردن قارهان عيدا كقرن كه oo maanta aynu joogno xafladoodii 27aad aasaaskii ciidanka qaranka waxaanu u dareynaa maan iyo bogaadin dhammaan dableyda saraakiil xigeenka saraakiisha iyo generaalada iyo xaasaskoodaba qaran ahaan oo mahadnaqaynaa abaalka ummadda golana waa haynaa waananu u ducaynaynaa sanadkiisa in ilaahay barwaaqo iyo horumar noo gaarsiiyo dhammaantood maanta aad ugu dheelaan maayo ciidanka qaranka taariikh ahaan iyo howluhu galo waayo saacaddii u dambeysay intuunbaa laga hadlayay ilaa sheekhii qur-aanka akhriyey ilaa fanaanintii ilaa wasiirka aad iyo aad baa maanta la isu taagay howlaha ciidanka qaranku qabto iyo wuxuu inaga mudayay waxaan ku darayaa in badan waxaa la isku raacaa oo la yidhaahdaa ciidanka qaranka iyo ciidamada oo dhammi abaalka qaranka oo galaan dal kasta ha ahaadeen lama gudi karo waa dhab waayo qof naftiisa huray wax loogu abaalgudo oo naf loo huro laakiin abaalkooda kolba in baa la gudaa marka maanta waxaan leedahay shacabka Somaliland dhammaantii meel joogaba maanta abaalka oo gasheen iyo hashii u hayseen sanadaha waxaan leeyahay in badan oo tallaabooyin horla ah ayuu abaalkii soo celiyey abaalku ma aha lacag abaalku ma aha adduun abaalku waxa weeye waxay aagarateen ee isu xil saarteen haddaa ciidamadoo dhanba tihiin ee ahaa qaranka jamhuuriyadda Somaliland oo ammaana oo nabada sidii loo heli lahaa ayaanu nafta u huraynaa dadka badan maanta qaranku dhammaantii wuxuu qaatay inuu tallaabadiinii qaato oo isaguna nafta hubo kow waxaanu ku jirnay waan maanta ku jiraa sanadkan maanta iyo kii ka horreeyayba oo ilaahay mahdiya Somaliland oo taladiinii qaadatay oo khilaafkii dhammaysay oo dhammaan u midowday horumarinta iyo nabadda dalka waxa kaloo guulaba in dhammaan eedow dhan la saaran siyaasiyiinta gaar ahaan xisbiyadii siyaasiyiintu inay u midoobeen horumarinta qaranka iyo nabadda oo ay ka saareen wax alliyo wixii xanaf iyo duurduur iyo hadal qaloocan ahaa siyaasadda oo maanta 10 bilood oo u dambeeyay gaar ahaan iyaga oo midaysan ay danta qaranka meel soo jeedeen oo hal daqiiqo laga maqal ina waa ilaahay mahdi waxaanu ku bogaadinaynaa gaar ahaan xisbiyada mucaaradka iyo dadweynaha taageera inay u arkeen mucaaradnimada inay noqoto dal dhis waliba waxay dareenaa dulqaad ku daraan si ay uga gudubno carqalada badan iyo cadow badan oo in hortaagan dadka dowladda warka imika dhow xisbiyadu waxay ku wada saaxdeen in ay u midoobaan sidii dalka hawsha ay u hayaan ee ah siyaasad nabadeed wax wada dhisa isqadarin ah lagu bilaabo in loo qorsheeyo waqtigii lagu gali lahaa doorashooyinka qaranka ee isku sidka dawladnimadu waxay ka dhisantaa waa golayaasha sharci dejinta dadka la dooranayo hadday noqon waayaan dadka dooranaya qaar soo caloolsan xisbiyada soo caloolsan qarannimadu u muuqato meel wax ka wada arkaya dadweyne u arka qofka ay dooranayaan inuu dalka wax u tari karo haddii aan labadaa la helin wixii aad beertay wanaagsanaan maayo oo dadkaad hadhow ta doorataa ma wanaagsanayo maanta waxaynu marakanahay in xisbiyadii iyo golayaashii sharci dejinta oo kuwii laga saarayay golaha ee maanta xilka dhigal lahaa iyaga oo in badan fadhiyay inay maanta arrintaa isku raaceen medalkeedina maanta uu joogo waxaan idinku bishaareynayaa qaranka Somaliland mid dibad joogiyo mid wada joogaba inay guurtidii maanta go'aamiyeen in doorashada la qabto waqtigii uu soo jeediyay guddiga doorashooyinku 31 May waa mahad ilaahay
waxaynu ku bogaadinaynaa xubnaha golaha guurtida iyo guddoomiyaashoodu inay tallaabada wanaagsan maanta qaadeen oo ay tahay bedela xeerkii ay go'aamiseen oo soo dedejiya waqtigii maadaama ay xisbiyadii iyo qarankii iyo xukuumaddii iyo guddii doorashadu diyaar yihiin waa waxa ilaahay lagu mahadiyaa waa arkaysaan dowladda hareeraha naga xigay carab meeshaynu ku nool nahay waa arkaysaan innaga labanama ictiraafsana waa arkaysaan waa laynoo dardaari wariyaa oo dhaqaalo ma haystaan baa la ydhahdaa waa aragtaan oo waxaa la ydhahdaa waa dad isku qayriyo oo heshiis maha way kala qobayihiin cadowga somalilan maanta waxaanu dhagaha u ridaynaa inay somalilan midowday oo hawshii aanu soo bilownay ee midnimada iyo horumarka iyo dimuqraadiyadda aynu soo wadnay gunaanadkeedii iyo kubaddii goolkii u dambeeyey ay gurtu ku laagtay oo shabaqa ku hubsatay oo arkaysa walaalayaal soomaaliya dadda waa isku xignaa waa soomaali waa muslim dhibaatada gaadhaa wayna damqaysaa waa u ducaynaa wax kale waa qarree wax kaloo tari karnaa maanta annaga teelna rafan haddaynu itaal weyn hayno oo iyaguna ay garan lahaayeen waxaynu u nahay oo halkay ka fikirayaan si ka duwan u fikri lahaayeen dadkooda iyo dowladdoodu maanta tabaaladooda iyo waxtarkooda dadka ugu dhawa qaban lahaa baynu nahay waxaan aad iyo aad uga xunnahay maalin waddanka dhimanaya ee dhiiggooda daadanayo ee muslimka ah ee soomaalida eenu hebel hebeladu garayno oo ugu dambeeyeen kuwii shalay hotel afig lagu laayay oo ugu dambeeyay generaal galaan oo shakhsiyan aad iyo aad u aqaanay oo oday soomaaliyeed oo weliba qadiyadda soomaaliya dadka xogaalka u ah waxay ku fadhiyaan garanaya ahaa aad iyo aad baan ugu tacsiinaya qoyskiisii iyo dadkiisii iyo inta kale taqaanaba walaalayaal maanta waxaan leenahay oo ilaahay nagu soo beegay oo inaynu ilaahay uga mahadnaqnaa iyada oo dadka oo dhamme intaa midna aynu soo qabsana hawsha ah ciidina dowlad iyo jimciyad quruba ka dhexaysaa midna aanay oranayn annaga ay ku taageernay hadday dhaqaalo tahay hadday dib heshiisye beelaan tahay hadday axsaab siyaasa soo heshiisye tahay hadday golayaashii oo iyaguna sharciyadiisa u sameynaya tahay waxaa ilaahay lagu mahadiya oo ummaddeena ugu mahadnaqaynaa oo kayar iyo kaynba loogu mahadnaqayaa sheekh iyo shariif wiil iyo gabadh oday iyo dhalinyaro iyo shaqooyinka kala duwanba in ay ummaddii soomaaliyeed maanta ilaahay tallaabada waafajiyey ciidamada qarankana waxaa guura waxaa naftiina u hurteen haddaa ciidanka qaranka tihiin haddaa boliis tihiin haddaa sirdoon tihiin haddaa ciidamada badda tihiin haddaa dabdabiska habeen walba dabka sulgiya tihiin haddaa immigration socdaal aliya tihiin haddii kuwa criminalska iyo maxaabiista dhaqan wanaagga kusoo celiya tihiin idinkana maanta waxaad ku gamahaysaan in dadkiina idinla qaaday tallaabadii oo ay maanta u midastada halka aa maraysay doorashooyinka waa ina waxay noo taraan inay waxna yeelaan maaha doorashooyinka waa inaynu horumar ka qaadna doorashooyinku maaha inaynu ku colowno oo marka wax la dooranayana aynu xanaf abuurno waxaynu nidhi aynu dooranno oo degmo walayba soo dooro dadka qaranka ku matalaya degmooyinkaynu gaarsiino gobolladu oo dhaafina 23 degmaa laga soo dooranaya waxaa lasoo dooran doonaa 82 mudane oo fartoodu noqon doonta sharci aad ku dhaqanto xilkaas maanta yuu saaray wuxuu saaraya degmo waliba inay qaranka u keento nin qof waxu tara rag iyo dumarba iyaguna ay keenaan qof xil gudan kara maanta xisbi idinma yeerinayo xukuumad idinma yeerinayso ciideedi kuma qasbayso qof wal oo taladaa wax ka galayo oo soo xildhibaan soo xulayo aakhiro waxaa lagu weydiin doonaa mas-uuliyadda aad qaadeed qaranka u keenaysa ciddii hoggaamin lahayd inaad daacad ka ahaato qofkaasi if iyo aakhiraba qaranka mid waxu taraya inuu yahay aakhiray ku saaran tahay dembigaasi haddaad qaranka u soo xusho mid aad og tahay inuu hadimo u keenayo ama aanu xilkaa ka bixi karayn qofka wax dooranaya waa la mid warqadda aad dhibaysaa waa inay noqotaa qofka aad dooranaysaa ha dhowto qaranka sharcigu u dejinayo iyo aayaha uu ka talinayo iyo waxa uu dooranayaa inay noqoto mid ifkiin iyo aakhiradiina loo wanaagsan ummaddana wax u tari kara oo hawshaa qaban kara yaynu canaanan maanta yaad canaanan doontaa qofki warowba uma tobanlaanahu
haddii aad soo saarto qof aan xilkaa ka bixi karayn yaad canaanan doontaa aakhire maxaad kaga jawaabi doontaa ummadda goorno maxaad ugu jawaabi doontaa taasi waa xilka maanta saaran degmooyinka cidda ka soo xuraysa dadka iyo qofka dooranaya waxaa loo baahan yahay inay qabtaan dadka xulaya qoladii iminka halkan riwaayadda masaajilaa dhegeysa waxay idhahdeen dooramayna waxna doonaya nin meeshaa iska joogaan u yeelina war dee waa dhaqa wanaagsan buu ahay bilowada xilka noo qaban karaya kaalo noo qabo iyo iga dah 60kii bay noogu dambeysay foodka intaa waxaan leeyahay dadka maanta soo xoraya iyo dadka wax dooranaya mas-uuliyiinta xisbiyada iyo kaadirkooda iyo ragga kaambeynka galaya ee doorashada u tartamaya anigu waxaan qabaa maanta inay doorashada iskaba dhan tahay 90% kaambeynka u dheey waayo waxaynu geynay doorashadii degmooyinka halkii ugu hooseysay degmo waliba cidday soo xushay ka firstay keentay wax la isu eriyado iyo wax la isu xigtaa ma taalo degmooyinkii baa laga soo codaynaya gobollada waa la yaqaana waxaan leeyahay xisbiyada iyo dadka mas-uuliyadda haya waxayna saaran marka ay doorashadu soo gabagaboobayso dabcan maanta waxa tartamaya 991 qof baa tartamaya waxaa dhici doona 2 meelood marka 3 meelood qabiil laba hadhaya waa dabcan waa bini'aadmiga mas-uuliyadda xisbiyada xukuumadda waxgaradka hadduu madaxdhaqameed yahay hadduu sheekh yahay hadduu ganacsada waxayna saaran inaynu doorashada ku ilaalino nabadgelyo iyo amni cadowgeenu hadduu tii hore ku quustay iminka soo waday oo taa maanta ay burtu gaadho damayso cadowgeenu wuxuu ku dadaalayaa doorashada natiijadeeda inuu khilaaf adag ka abuuro walaalayaal dhibaatada ay leedahay doorashada markay dhammaatay dhibaatooyin ka soo baxa qoladii Mareykanka adduunka ugu xoog weynaadeen ahayd 200 sano doorasho wada wixii ka dhacay waa arkaysay inay ku dhinteen oo gurigooda loogu dhacay oo ay ku khalkhaleen qoladii Mareykanka ahayd adduunka naga ugu xoog weyn waa arkaysay oo awood oo sheeganay inagu awoodana hanaawata iimaanka iyo Ilaahay iskaashigiisa iyo ummadeena aaminsan oo wanaag jecel inaga xoogeenu waa ka qof walba shaqo kasta hay ama geel raac ama badka kalumayso ama kuuri ahaw ama professor jaamacadooda ahaw ama taajir milyaneer lacag haysta ahaw waa inaad noqotaa samawade booliis ah oo amniga ilaaliya waa inaad noqotaa xaakim garqaadano hebelod qaldantay joog waa inaad noqotaa nin dhimbiisha dalka markay doosho qabto halkeeda ku qabto waxayna ugu haray haddaynu Soomaaliland nahay inaynu doorashooyinka inagoo wada jira oo cadawgeenu badan yahay oo dhaqaalaheenu badan hayn aynu ku dhamayno nabadgeliyo kii soo baxaba waa inankeeni kii maadaaba waa inankeeni waxay la matoohayn inama kubadooda ciyaaray oo garoonka baxay garabka qabsado waxaan ku adkeenayaa intaas aynu ugu hadlay anagu haddaanu xisbiyada nahay go'aan baanu gaadhnay waxaanu samaysanaynaa xeerka anshax waxaanu qori doonaa ilaa ay dhammaatay sida la yeelaysa loo kala baxay anaga hogaamintaasana saaran idina fulintaadi saaran haddaad dadweynaha tihiin da' kastoo tihiin iyo qof kastoo tihiin taa intaasaa kaga hadhayaa waxaan ka hadlayaa qodobka maanta adduunyada Somaliland oonay caalamka itiraafsanayn Somaliland oonay dowladda toos u xusin Somaliland oo Ilaahay aaminsan isku tashatay dhibaatooyinka jira ee adduunka maanta maraya Ilaahay uu ina garab marin xanuunka COVID oo laga qayliyay Ilaahay saf mareen khafiif inooga dhigay abaariya ay xabaa jiray wari waanu ka ladanahay inkastoo jiilaalkii laba bilood inooga hadhay waa fudud yahay jiilaalkeedu waa Ilaahay mahadi khilaafaadka siyaasiga ah iyo dagaalada iyo colaadaha geeska Afrika ka aloosan ee nagu xeeranna Ilaahay uu inaga nabadgeliyay waxaanu u baahanahay inaynu qaadano aqliga ah yaa wax la qabsada dadweynaha Somaliland waxaan leeyahay aynu ka baxno waa la caawinayaa iyo cid baan qaylo u dirsanayaa iyo na soo gaaray ereyga la yiraahdaa wuxuu noo horseedayaa goonnimo iyo hanyari
يا آمن إننا إلهي آمن واحد مقلص واحد صار واحد ويتسنى هذا عالم كهذا دولتنا نسوقاره إلههم بين سوقاره كره ورجت بوين نوري أبارك هذا بين سومر تشري لبعتوي كبضن بين سومر رجع والدين واحد وكجب يحكي رئيس كرسوانات إيه النجا أو أنت إنه كم على بورك كك على إسكت شفرون قرناه هو بس يعرف له ولا ليال أبارنا عايش أفر سنة كه دد كني قبتها عن هورسي كحشوا جري كفان جري هدو عيرو بحوق ستة جري مالو مرابو ده حين جري isaga oo gabadha iyo odayga iyagu laga yaabo in aan laba cisho wax ka xisho jiray waa qatar reerka martiyaa ee loo jiray warninka ishiisa wallahi loo shaqeeyo kii oran jiray maanta wuxuu marayaa qofku isaga oo waxaysta inuu baryada badiyo qayr badiyo maxaan loo sidaa maxay idin wax loo sii waayay waa la dajay dadkii bacba meel loogu dhisay banaana $80 baa waa la siinaya barsiin soo qoyska la sii xagga u soconaya همد دمبوي حركوا نقدان ما هيا تعب وحكرشة ما هيا ودقن جور وبربرقوس سواء سامع هاتشري كم الناس وكرمك سواء عاك أنا وجد أديد وأنا كن قبل العذر والبا هذا أبى الرجل على هاي مكيرة إنه أنا سكرت الشر هل يسحور رجوي واجهك وذو حساري حوشها إلى قريب قال ضد كان وتدخل عيسو وضدك إلى هاي العكس السيء تجارة بيزنس ماركة وايو تجارتنا قاركود سكده ضمانته رجال دم بك صار كرتا فقري oo inta gaalad soo yeesay in ka badan bixin kara ma ahan lacagta bixiye sakada ay ku leedahay diinto kaliya ayaa goboladan ka saar karta waxa ay nagu weysanayaan hay'adayno sariya halkaan waxa la ku noqon dadkeenu iimaankii ay lahayn iyo qabkeeni iyo inayna nin Faransiya iyo mid Carbeetona midna waxba waqoonin aynu soo celino oo aqliga 30 sano dambe inagu batay ee abariyada iyo inaan liidano iyo inaan wax qabsan kareynin halaga baxo ilaahayna yeynaan ku gafin waayo waxaanu nahay dalka la hubo ee intii nimca ahayd ee adduunka la siiyay roob iyo xoolo petrol oo la hubo ceelasheenu inuu baahan yahay hawl gaar ah oo wada ogtihiin oo doqonimadeena iyo iskaashi la'aanteenu hayso inaynu qoon aynu soo baxo waxaynu hubnaa inaad dhamaantii ka wareysaan in dahab aan la qodin banaanka laga helo oo la hubo dahabka ku jira haddii aynu ilaaha la qodo inaga mooyaan geeska Afrika dhan dhaqaalis oo jiray oo maxaynu u qodan lahayn oo maxaynu u dhaqaajin lahayn doqonimadeena iyo kala qobnaanteena inaan isku aamino qolo ka xorantay waxaan leenahay badda ugu dheer oo waxaan doonno kala soo bixi karo madaxda hadduu xisbi yahay iyo hadduu jana yahay iyo hadduu wasiir yahay hadduu madaxweyne leeyahay iyo hadduu sheekh yahay waxa laga rabaa inuu dadka waxa toosan iyo wadada u sheego laakiin hadday qaadan waayaan madaxdu eeda mala dadweynaha leh annagu sidoo ilaahay faray eenu iska aragnay baanu idin sheegaynaa oo aan hala qaato haddii diidaan idinka halkaas dhigay waxaan ku soo gabagabeynayaa maanta Soomaaliland waxay joogtaa farxad laba arrimood taariikheenu maanta goobta ugu dambaal degnay midowga sard guuleed ciidamada qaranka waajibkooda gudtay oo dalkii nabadiisa xasiliyay oo qarankii magaciisa sharaf u yeelay midowga golayaashii sharci dejinta iyo xisbiyadii qaranka iyo guddiga doorashada iyo dadweynaha oo dhan oo markii u horeysay doorashadii ku heshiyay in hore loo soo dhigo oo iyagoo isku duuban dhamaantood maanta ay guurtiina u saxday sharciga u dambeeyay loo galaad doorashada 2013 ilaahay waxa kala jeenay noqoto doorasho khayr leh ilaahay waxa kala jeenay nabad kaga baxano ilaahay waxa kala jeenay xanaf iyo ay iyo sijiid iyo forxba aan yeelay ilaahay waxa kala jeenay dadka faraya inaan siday ahaan jirtay doorashada hore go'aan wax ka bedelo dhaqaale la baabinayo oo qaad malaayiin lagu cunaayo muxuu taraya inaga u baahan kiibka u baahan waxaanu dhan waxaanu ku dhamaynaa petrol campaign qof waliba gaaro ereeya wala soo duqeynaya shidaalka iyo dayactirka cid baa qaatay inuu gudbina waa lacag naga baxda wax kale inoo qaban lahayn hiftanka iyo iscayga walaaltinimo inagoo wada walaalaa oo isu seediya oo wada xidoor isbacay karin bar iscay weerar joojina ilaahay doorashada nagu mid khayr qabta aynu diyaar garowno dhamaanteen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh